السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبروجي يهردعي دجنه السياسة أقانات الصومالية وين دجنها سياسة الصومالي وين وحقري دكتور حسن مكي محمد أحمد أو سوداني وحنا صار حرونت علم بارسها إسلامي جاء أفريقيا دعدا مقالو مدحda السودان خرطوم dabcadiisii koowaadna waxa ay soo baxday 1410 hijriga oo ku aadan 1990 miilaadiga dhiganahani waxa uu soo baxay xilligii bilowgii burburka Soomaaliyeed sida aawadeed way ka maqan tahay oo ma xusayo sooyaalkii Soomaalida ee ka dambeeyay 1990 iyo kala go'go'ii dalweynaha Soomaaliyeed asxaabta ku xirmaysa dhiganahana waxaan u soo jeedinaynaa in fikirka iyo xogta ay kala baxayaan dhiganahan ay ku saleeyaan oo u fahmaan in kala furfurashadii deegaanada Soomaaliyeed uu ka horeeyay una soo bandhigayo xogihii daarana markii ay xuduudaha iyo deegaanada iyo laabaha iyo dadka Soomaaliyeedba ay mideysnaayeen ee dhanka u wada jeedeen qoraagu waxa uu xoog saaraya muddooyinkii u dhaxeeyay 1887 ilaa 1986 oo ah muddo 9 sanadooda ahna muddada ay firfircoonida la taaban karo siyaasadda Soomaalidu adduunweynaha ku lahayd Afrikana ay hormuudka u ahayd dhiganahan hordhiciisana waxa uu ku soo qaadanayaa qoraagu aqoonta guud waxa ay koobsanaysaa dhammaan xogaha iyo aqoonta uu garaadka aadamuhu ururiyo ee uu ka soo dhiraandhiriyo rabitaanka iyo aragtida wax ku oolka ah cilmi baadhistanina waxa ay koobsanaysaa aqoonta iyo arrimaha u gaarka ah ee seeska iyo saldhigga u ah siyaasadda Soomaaliyeed waxana ay ka qiimeynaysaa dhinacyada diinta afka sooyaalkooda qoran iyo ka aan qornaynba dhaqanka iyo hidaha bulsheed ee ay leeyihiin iyo raadka ay ku reebtay siyaasadoodu intii u dhaxaysay 1887 ilaa 1986 waxaynu uga jeednaa ereyada ah siyaasadda aqooneed ee Soomaalida weyn dhammaan bahigsiyada qorshayaasha hanaanka iyo jidadka loo maray habmaamulka Soomaaliyeed ee dhaliyay garaadka ruuxa Soomaaliga ee maanta jooga oo ku shaqeynayo ilbaxnimo hadii ay noqoto iyo afkaar wax xambaarsan yahay hadii ay noqotaba waxaynu sidoo kale daraasaynayna habmaamulkii ay gumaystayaashu u horimeeyeen ee u qaybqaybiyeen Soomaalida iyo raadkii ay kaga tageen iyo sidii ay u cirib tireen aragtidii ahayd Soomaali isweheshata waxaanaynu ka soo dheerin doonaa taariikh aynu gorfaynayno insha Allah markaynu leenahay Soomaali weyn waxaynu u jeednaa deegaanada waayaheena loo yaqaano Jamhuuriyadda Soomaaliya Jamhuuriyadda Djibouti iyo labada gobol ee Herer iyo Ogaadeen ee xabashidu ay haysato oo soo raaco aagga xuduudda waqooyi ee Kenya ee ay Soomaalidu degto deegaanadaas oo dhan waxa loo yaqaanaa dhulka Soomaalida waxaana ku weheliyay in yar oo canfar ah iyo in yar oo Oromo ah marka la eegayo dadka Soomaaliyeedna lama oran karo waa ummad ee waxa la oran karaa waa qoys ay sababtu tahay diin madhab af dhaqan isir iyo sooyaalba way ka midaysan yihiin waxa iyaguna la wadaaga astaamahaas canfarta iyo Oromada inkasta oo ay dhaqamadooda iyo afafkoodu gaar u yihiin iyaga ummadda Soomaaliyeed waxyaabaha ka dhigay dad isu sanbanaan oo isu furan si walbana u midaysanna waxa ka mid ah kow isdhexgal bulsheed oo ka dhaxeeyay xubnaha iyo qabiilada degan dhulalkaas oo badankoodu muddo aan siiba fogeen waxa ay ahaayeen xoolo dhaqato mana ay aqoon dabinada siyaasadeed iyo xadadka dhuleed deegaankaas oo dhamina isu guuritaanka iyo eriyadka baadka iyo biyaha ayuu u furnaa laba goobaha ilbaxnimo iyo siyaasadeed ee deegaankaas oo isdhex gashana xeebo iyo oogoba oo waxay ilbaxnimadu u kala talaabaysay Saylac Berbere iyo Muqdisho oo xeebo ah iyo dhulka gudaha oo ay hormuud u ahaayeen Herer Jigjiga iyo Dirir Dhabe saddex islaamnimada oo ay ku mideysnaayeen oo ay galeen tijaabooyin sameeyeen taariikh muujinaysa inay yihiin bah islaam ah oo handadaadi kaga imanayso xabashida ka guunsan kana higilka iyo maamulka weyn ee dusha ka sarreysa deegaankooda degan oo ay Soomaalida laftoodu doonayeen inay islaamka ku faafiyaan oo ay gebigoodaba qabsadaan
sababaha aynu dooranay inaynu muddadaas qarniga ah ee 1887 ilaa 1986 ah faalayno oo gorfayno sooyaalkeedana waxaa ka mid ah kow in sanadkii 1887 uu ahaa sanad uu ummada Soomaaliyeed ku bilaabmay dhalin rog laga doorinayo soo jirankoodii oo lagu soo horeeyo fikiradii gumaysiga iyo wixii uu hoosta ku watay ee dano gaar ah afaf isdhexgal bulsheed diimo dugsiyo iyo aqoon reer galbeedaysanba ahaa waxaana gugaas muuqday ifafaalaha iska horimaadka siyaasadii iyo ciidankii gumaysiga iyo raganimadii iyo diin jacaylkii dadka Soomaaliyeed oo uu gadhwadeen ka ahaa sayid maxamed cabdulle xasan laba sanadkii qarnigaas laga faaloonaya ku ekaa ee 1986kiina waa sanadkii gebi ahaanba la takooray ee 6 iyo 2 la isugu celiyey dhismihii iyo jiritaankii ummadda Soomaaliyeed iyo saameynta uu kala guurkaasi ku reebay siyaasadii afkii diintii dhaqankii iyo hidihii ummaddan Soomaaliyeed 3 waxaynu daraasaynaynaa siyaasadda aqooneed ee deegaanka Soomaaliyeed oo ah kan ugu ilbaxsan higsiga iyo hormuudkana u ah Afrikaanka oo dhan ay sababtu tahay waxa gumaystay oo qabsaday saddexdii gumaysi ee ugu ballaadhnaa Afrika ee Ingiriis, Faransiis iyo Talyaani habdhaqanada gumaystayaashaas oo dhan oo isku dhafmay ayayna dheer yihiin Afrikada kale 4 waxaynu diiradda saaraynaa sababaha keenay cadaawadda iyo isnacaybka colaadu ku dheehan tahay ee dhex yaalla dawladaha waqooyi bari ee Afrika ee Soomaalida, Itoobiya iyo Kenya intaas haddii aynu ka boganno uma janjeersanayso daraasiintani arrimaha ku aadan Soomaalida ee isdil dagaallo sokeeye kala googo iyo waxyaabaha la midka ah ee waxa ay aad ugu dhuundaloolaanaysaa guud ahaan danta Soomaaliyeed iyo sansaankeedu sida uu ku dambaynayo iyada oo looga taamino qaadanayo soo jiroonkooda iyo sooyaalkooda qaybta koobaad dhiganaheenani waxa uu xooga saarayaa dalka Soomaaliyeed juqraafi ahaantiisa dadkii iska soo dhaxlay ee soo degay boqortooyooyinkii islaamiga ahaa ee ka soo talinayay dagaaladii iyo loolanadii ay la galeen xabashida Kiristanka ah ee uu garwadeenka ka ahaa Axmed Guray Ibraahim iyo sida ay isugu kaashadeen xabashida iyo Boortaqiisku iyo sidii ay ugu soo gurmadeen Axmed Guray khilaafadii Cusmaaniyadda iyo dawladdii Maxamed Cali ee Masar soo gelitaankii awoodaha shisheeye ee gumaystayaasha ahaa oogsigii jihaadkii sayid maxamed cabdullaahi xasan uu kula dagaalamayay goboleysiga geyiga Soomaaliyeed uu gumaystuhu u qoondeeyay iyo sidii harar iyo dhulkii islaamiga ahaa ee deegaankeeda ahaa loogu gacan geliyay boqor Minilkhi xabashida ee looga siibay dharkii islaamnimada ee looga dhigay deegaan Kiristan cutubka labaad waxaynu ku xusaynaa xogo daaran aqoonta ummadda Soomaaliyeed iyo sooyaalkooda diimeed dhaqdhaqaaqa dacwadda islaamiga ah ee ay la soo martay Soomaaliya diinta iyo suufinimada nooca suufinimada Soomaalida oo ay calanka u sido qaadiriyada oo ku abtirsata Sheekh Cabdulqaadir Jeylaani iyo Axmediyada oo iyaduna ku abtirsata Axmed ibn Idriis Alfaas waxaynu sidoo kale eegaynaa loolankii ka dhex aloosmay iyo fikirka suufinimada iyo sidii uu dhuun marka ugu yeeshay aragtidii gumaysiga ee reer galbeedka kadibna Soomaalida iyo qaabkii ay aqoon ahaan u dhisnaayeen iyo aragtiyaha ay ka soo tabiyeen Kiristanka qaybta saddexaad waxaynu ku lafaguraynaa siyaasadaha aqooneed ee Soomaaliyada weyn xilligii u dhaxeeyay labadii dagaal soo ifbixi jamhuuriyaddii Soomaaliyeed iyo midnimadii waqooyi iyo koonfur ee 1 Luulyo 1960kii oogsigii xisbiyadii siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Djibouti labadii gobol ee Harar iyo Ogaadeen gobolkii Soomaaliyeed ee Kenya haysatay dhaqdhaqaaqyadii ka dhismay dalka Soomaaliyeed gabagabadana waxaynu ku yaraha kanaynaa loolanka ka dhex aloosan Soomaalida iyo xabashida iyo loolanka ka dhex oogan Soomaalida iyo Kenyaatiga cutubka afraad waxaynu ku falanqaynaynaa dastuuradii loo dejistay Djibouti Harar Ogaadeniya iyo waqooyiga Kenya ee Soomaalida laga haysto dibka riixii lagu ansixiyay in afka Soomaaliga lagu qoro farta Laatiiniga ah oogsigii ay ka gilgisheen dhaqdhaqaaqii islaamiga ahaa ee far Carabida loogu ololeynayay kaalinta uu maanta afka Carabeed ku leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyadoo haddana dadkii lagu beeray siyaasado wadaniyadeed iyo qowmiyadeed afti laga qaaday dhalinta gobolada Djibouti Muqdisho iyo Baydhaba oo gabagabadii lagu ogaaday inay aqoonta ummadda Soomaaliyeed u janjeersanayso dhanka gumaystayaashii gudnimada baday ee gobonimadoodii cagta hoos geliyay inkastoo ay afka Carabeed iyo aqoonta ku duuganiba kaalintoodii ku leeyihiin bulshada Soomaaliyeed oo goobaha barashada diintu ay dabardambeedeen oo ilaaliyeen haddana loolan aqooneed iyo mid afeedba wuu ka oogan yahay geyiga Soomaaliyeed
waqooyiga ingiriisaysta iyo waqooyiga Kenya waxa ay u janjeedhaan dhanka ilbaxnimada Ingiriiska koonfurta Soomaaliyeed waxa ay u janjeedhaan dhanka ilbaxnimadii Talyaaniga Soomaali galbeed oo herer iyo ogaadeeniya ah af xabashi iyo Ingiriisi ayaa farabaas ku haya inkasta oo ay Carabiduna booskeeda xijisatay gobolka Djibouti shan af ayaa ku hirdamaya oo Soomaali Carabi Canfari Faransiis iyo Ingiriisi ah balse loolanadaas oogan oo dhan waxa marba markii ka dambeysay ku sii tirtirmaysay oo sii dhalan rugmaysay oo sii lumaysay luqadii Soomaaliyeed ee asalka ahayd gobol walibana ninkii gumeeyay ee gumeystay afkii uu ula yimi ayuu ku faanaa oo iskula weyn yahay cutubka shanaad waxaynu ku eegaynaa heerka aqooneed iyo heerka siyaasadeed ee Soomaalida oo ay ka muuqato inay la yihiin oo aanay uba jeesan in ay wax hor leh oo cusub hal abuuraan oo fikirkii dheeraa iska soo koobay oo meel dhow uun eegaya xataa fankooda iyo suugaantoodu aanay xog iyo fiiro dheer u gudbinayn bulshada ee ay riwaayadahooda maansooyinkooda iyo heesahooda kamanka lihiba ku kooban yihiin madadaalin iyo ka qoslin uun waxaana aynu ku eegaynaa xaalufka iyo burburka ilbaxnimadii Soomaaliyeed ee soo jireenka ahayd dhanka guud ahaan shacabka iyo aqoontooda islaameed ama aqoontooda guudba haddii aynu eegnana jamhuuriyaddii midowday ee la baxday Soomaaliya masaajida iyo malcamaduhu way ku bateen oo waa laga haqabeelay balse labadii gobol ee herer iyo ogaadeeniya loolanadii ay la galeen cadaawuhu waxa ay badeen in qofku aanu ku fikirin wax ka badan in uu tiisa uun la badbaado xataa marba soo dhaweynaha iyo dastuurada cusub ee loo sameynayaa waa sun malab loogu qooshay uun ugu dambayntana waxaynu isla eegaynaa in ay bulshada Soomaaliyeed wax fahantaa inay ku xidhan tahay in la helo siyaasad aqoonaysan oo barabixisa oo bedesha siyaasadii ragaadinta ahayd ee uu gumaysigu ku sii seeteeyay kor u kaca iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed adduunka in ay wax ka qabsadaanna uu kaga dabray iyo in siyaasadaasi tiirarka ay ku taagan tahay ay yihiin afka diinta aragtida quman iyo siyaasadda hindisaha toolmoon ku salaysan dhammaanba xogaha aanu ku xusi doono dhiganahanina ee waa xogaha aanu ka tarjunay buuggaas weliba buugga laftiisa waanu dul maraynaa oo si wacan uma wada tafaftirayno oo ilaha muhiimka ayaynu ka soo qaadanaynaa insha Allah waxaana aanu isku dayaynaa haddii Ilaahay ka dhigo in inta aanu ka dhaafnay iyo inta kaleba aanu si wacan u tafaftirno aanu idin soo daabacno oo idin soo gudbino si aad indhihiina ugaga bogataan haddana xogaha guud ee lama huraanka ah aanu idin soo qaadano haddii ay jiraan wax dheeraada ama falanqayn ah oo aanu sii raacinaynaana waanu idin sheegaynaa inta aanan ku darin in ay aragtidayada tahay muhiimaddu maaha inaynu tagtadeennii iyo waqtigeennii ina dhaafay wanaageediina u barooranno oo bishmaha u qaniino xumaanteediina ka qoomamayno oo isku ciilkaambino ee muhiimaddu waa inaynu ururinaa xogaha tagtadeennii iyo sooyaalkeennii si aynu ugala baxno fikir quman oo tijaabooyinkaas aynu soo marnay oo dhan koobsanaya samaantooda iyo siloonaantoodaba fikirkaasna aynu ku salayno aayaheenna iyo sida aynu la maaganahayba muuqaalkeena kan inoo xigana waxaa si toos ah inoogu bilaabmaya dhiganaheennii waxaanaanu ka dhigaynaa taxane joogtaa oo maalinle ah waxaanaanu rajaynaynaa insha Allah in garaadkii Soomaaliyeed halkii uu taagnaa uu ka dhaqaajiyo oo indhaha qofka Soomaaliga ee gudaha deegaankiisa eegaya uu dibadda deegaankiisa tuso oo kor u qaado iyo in uu baro bulshada Soomaaliyeed cidda ay yihiin iyo cidda doonaysa waxa ay yihiin inta ay ka bedelaan waxa ay la doonayaan iyagu inay ka dhigaan wassalaamu calaykum